ismaqaliya daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo si gaar ah ugu eegino barnaamijka falanqaynta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Hadaba waxaynu eegino daawadayaal inta nala joogtaan wararkii ugu dambeeyay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidoo kalena madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu taageero u muujiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo lagu wareejiyay amniga guud ee doorashada dalka. hadaba muxuu ku taageeray xog iyo macluumaad dheeri oo aan idinkaga hayna ayaa idin soo gudbin doonaa. shir u furmay ra'iisul wasaare Roble iyo beesha caalamka iyo Roble oo ku dhawaaqay dhisidda ciidan u gaar ah doorashada. qaybaha dambena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaguu ku dambeeya Saadaq John oo ah janan ka goostay dowladda federaalka isla markaana ku dhawaaqay inuu ka horjeedo muddo kororsigii ku dhawaaqday dowladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inkastoo markii dambe ka noqotay. hadaba Saadaq John halkuu cirib iyo jaan dhigay halkuu ku dambeeya arrimo xasaasi oo arrimahaasi ku gadaaman ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. ayna ku bilownee faahfaahin dheeraad ah waxaa laga helaya khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir kaas oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac. qaraxana oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ayaa lala beegsaday gaari Land Cruiser oo marayay Kaxda. inta la xaqiijiyay waxa qaraxani ku dhintay ugu yaraan 3 ruux halka uu ku dhaawacmay qof kale kuwaas oo la socday gaariga la qarxiyay. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya ayaa goobta gaaray dhacdada kadib kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi. macada baaritaan tilmaameedka qaraxani mana jiro weli wax war oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ay ka bixiyeen qaraxaasi khasaaraha dhaliyay. si kastaba qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan dari oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo intaba. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa dib u soo laabaneysay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii qalalaase ka dhashay muddo kororsiga uu sameeyay madaxweyne Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada. madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la garab istaago ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble si loo hirgeliyo doorasho xor oo xalaal ah. Xasan Sheekh ayaa sheegay inuu bogaadinayo dadaalada uu Roble ka ballan qaaday ama ku bilaabay xal u helidda xasaaradihii amni ee magaalada Muqdisho ka dhacay iyo sida uu kasbaday saamileyda siyaasadda dalka. waxaan bogaadinayaa dadaalada ra'iisul wasaaraha ee xal u helidda xiisadda ka dhalatay muddo kororsigii sharci darada ahaa. sidoo kalena waxaan soo dhaweynayaa shirka uu ku baaqay 20 bisha ayuu ku sheegay hadal kooban oo maanta uu jeediyay. waxa uu ku baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in fursad la siiyo lana garab istaago dadaalka uu wado ra'iisul wasaaraha si uu dalka uga baxo xiisadda siyaasadeed iyo midda amni ee ka dhalatay muddo kororsigii sharci darada ahaa iyo inqilaabka hay'adaha dastuuriga. dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ugu baaqayaa inay ra'iisul wasaare Roble ku garab istaagaan hirgelinta doorasho xor oo dalkeena ka dhacda ayuu raaciyay. Xasan Sheekh ayaa muujiyay sida uu ugu kalsoon yahay go'aanada ra'iisul wasaare Roble taas oo meesha ka saaraysa shaki ay muujinayaan midowga musharaxiinta iyo golaha badbaado qaran. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii la siiyay awoodda hirgelinta doorashada iyo amnigeeda wada dadaalo uu ku doonayo inuu saamileyda siyaasadda iyo madaxda maamul goboleedyada ku qanciyo si ay uga qayb noqdaan xal u helidda khilaafka ka taagan dowladda. wuxuuna hadda haystaa ogolaanshaha dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta. ayaa hadda soo baxday taladii waxay ku wareegtay oo lagu wareejiyay bacda shidda wa tacab Prime Ministerka. dadka Soomaalida waxaan rabaa inaan u sheego rajo fiican ay jirta marka maanta. Prime Ministerka Maxamed Xuseen Roble niman aqaano waaye aniga nin aad iyo aad qalbigiisu nadiif u yahay nin aad iyo aad go'aan qaadashiisu ay u adag tahay oo wanaag aan ku aqaano waaye. maanta waxaan rabaa marka wixii kala qaybsanaan iyo dhibaatay in meeshaas ku haraan oo aan Prime Ministerka aan xooggeena iyo caqligeena aan isugu geyno si aan u xaqiijino muddo yaroo kooban xaaladda dalka uu ku sugaya kuma sii sugnaa kara muddo dheer. muddo yaroo kooban in dalku doorasho ay ka dhacdo hoggaan cusub la doorto dowlad cusub la doorto ciddii Soomaali oo Ilaahay u calfa ha noqoto nabadna ay ku dhammaato.
wadada ugu gaaban ugu sahlan iyo juhdiga ugu fiican ee aan ku bixi karnaan waxay tahay inaan prime ministerka iyo xafiiskiisa inaan xoojino oo aan garab istaagno oo aan la shaqeyno golaha midowga murashaxiintu go-aanay ku gaareen in prime ministerka lala shaqeeyo waana la shaqeynay waana la shaqeynaynaa tallaabooyinka ilaa hadda prime ministerka uu qaaday waa bogaadinaynaa waa ammaanaynaa waa ididiile iyo ifafaalo fiican guddiga xalinta khilaafka ka dhex yimiday ciidamada amniga arrin soo dhoweyn mudan waaye shirki uu iclaamiyey iyo maalintii iyo taariikhdeedii la fix gareeyey oo la dejiyey waa arrin kaloo ayadana soo dhoweyn mudan bisha 20keeda in uu la isugu imaanayo shirki oo la wada hadlayo dhinaca kalena ra-iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka ayaa shir waxa uga furmay magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kalena ra-iisul wasaare Rooble uu ku dhawaaqay inuu dhisayo ciidamo markaasi gaar ah oo ka shaqeeya doorashada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa shir waxa uu maanta uga furmay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho kulanka oo ay qabanqaabadiisa ay u lahayd beesha caalamka ayaa waxaa looga wada hadlay doorashada iyo sidii Rooble loogala shaqeyn lahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana ay ku wada qanacsan yihiin saamiilayda siyaasadda sidoo kale kulanka waxaa looga wada hadlay sidii ay beesha caalamka u fududeyn lahayd shirka la filaya inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku yeeshaan Muqdisho 20 bishan sida uu ilaamiyay ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda ay wado qorshe ay ku soo dhisayso ciidamo qaas oo fuliya amniga doorashada kuwaas oo loo wada dhan yahay dhexdhexaad ah waxaana uu intaasi ku daray in ciidankan ay ku shaqeyn doonaan xeyndaabka sharci uuna dhisi doono kala tashan doona dhammaan saamiilayda siyaasadda dalka waa shirkii ugu horeeyay ee dhexmara ra-iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka tan iyo markii ra-iisul wasaaruhu la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amniga oo looga fadhiyo inuu dhowaan gudagalo hirgelinta doorashada ama heshiiskii 17 September waxaana uu sheegay in kadib markii uu wadatashi la sameeyay maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorashada asaaskeeduna yahay heshiiskii 17 September Rooble ayaa sheegay in caqabada kaliya ee hortaagan doorashada ay tahay dhameystirka heshiiskii 17 September iyadoo loo sii marayo talooyinka shirkii Baydhabo waxa uu ku baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshayaasha ku saabsan taageerada dhinaca tasiilaadka farsamada iyo dhaqaale ee la fidinayo hanaanka hirgelinta doorashada shirkan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ogolaaday inuu mas'uuliyadda doorashada iyo amnigeeda uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare Rooble kadib markii magaalada Muqdisho uu ka dhacay dagaal dhiig ku daatay oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo ciidamada diida muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo ugu dambeyntiina daawadayaal xagga dambe waxaynu ku eegaynaa warbixin ku saabsan xagee buu ku dambeeyaa General Saadiq John oo dhawaan ka goostay dowladda federaalka ee Soomaaliya taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan oo loo garan og yahay Saadiq John isla markaana isniintii xilka laga qaaday ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho sida warbaahinta inoo xaqiijiyeen isagoona saldhig ka sameysay xaafadda Barmuuda ama Siigaale ee ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ku wada sugan yihiin isaga ciidamo uu hogaamiyo oo ka horjeeda dowladda saacado kadib markii uu ka hadlay ayaa laga qaaday xilka waxaana durbo soo baxayay warar sheegaya inuu dalka ka baxay taas oo markii dambe ay beenowday balse waxa uu degay markii dambe xaafadda Shirkalo ay ciidamada dowladda ay ku hareereeyeen halkaas oo qarka u fuulay inuu dagaal uu ku dhexmaray ciidamo isaga ka amar qaatay iyo kuwa dowladda federaalka warbaahinta ayaa waxa ay ogaatay in General Saadiq John uu ku sugan yahay guri ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Siigaale halkaas uu la degan yahay ciidamo isaga ka amar qaato oo markaasi doonaya in ay ka hor yimaadaan damaca Farmaajo ee muddo kororsiga kaas oo markii dambe uu madaxweynuhu ka laabtay Saadiq John waxaa la joogay ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya kuwaas oo go'ay xagiisa
ila wareedyo muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyay in haysto ciidan ku filan iyo gaadiid dagaal isla markaana aysan jirin cid isku dayi karta in ay qalqalgeliso amnigiisa. saraakiil ciidan oo ka agdhow Saadiq John iyo siyaasiyiin kale oo ehelkiisa ayaa warbaahinta u sheegay in General Saadiq John dastuurku uu ogol yahay inuu ka mid noqdo siyaasiyiinta isla markaana saraakiisha ciidanka haddii ay gaaraan darajooyin sare ay siyaasadda ku biiri karaan sida ay hadalka u dhigeen. madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa darajadii ciidanimo ka xayuubiyay sareeye guuta Saadiq Cumar Maxamed Saadiq John sidoo kalena guud ahaan xuquuqdiisa ciidamo ayuu ka xayuubiyay. Saadiq Cumar Xasan ayaa hore u ahaa shakhsiyaadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo hase yeeshee go'aankii uu qaatay Isniintii ayaa muujinayay in siyaasaddu aysan lahayn saaxiib joogto oo ay leedahay dan joogto ahi. guud ahaan daawadeel warkaad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkeenu halkan soo gelino. waana mahadsantiin.